kulannada waxay u yihiin shaqada lagama maarmaan balse mararka qaar waxaa dhacda isla kulankii la rabay inuu shaqada caawiyo inuu caqabad ku noqdo natiijadii laga rabay shaqada inay u soo baxdo waxaan rabaa inaan kula wadaago 8 tallaabo ama talooyin ah oo aan isleeyahay wax weyn ayay ka tiri doonaan haddii aad dabaqdid kulankaaga xiga insha allah asalaamu calaykum waraxmatullah magacayga waa cabdiwahaab cabdilaahi oo la talinaya tababarana siinaya shirkadaha soomaaliyeed 10 sano in ka badan jaamacadda MIT ayaa waxa ay daabacday goor hore article ama maqaal oo runtii ay uga hadashay arrintan waxyaabaha ay soo hadal qaadatay waxaa ka mid ah in kulannada qaar looga maarmi karo keliya hal email ama hal qoraal oo loo qoro shaqaalaha iyagoo jooga goobtooda shaqada ama WhatsApp group ama Slack message ama wax alla wixii suuragal ah oo looga baaqsan karo in intaasoo dad alla isu keeno waqtigoodina laga lumiyo ugu dambeyntii waxay horseeday arrintaasi in ay sameeyaan weed caan ka noqotay bahda ganacsiga dunida dhexdeeda oo ay u bixiyeen calaamadda kasoo kabashada kulannada oo ay ula jeedaan qofka shaqaalaha ahi marka uu kasoo qayb qaato kulan enerjigu aad u hooseeya oo dhibaato badan ay ka jirtay inay dhacayso waqti badan inuu ku qaato inuu dib u soo kabto si shaqadiisii uu diiradda u saaro arrintaas iyada ahna waxa ay saameyn xun ku leedahay hadba shaqaalahaasi shaqada u haya fiicnaan lahayda qofka kulanka hogaaminaya inaan aniga ahayn ama qofkii ka qayb qaadanaya aan ahayn aduguna sidoo kale dad yar oo inaga naga mid ah ayaa haysta tababaro rasmi ah oo dhanka maamulka iyo maaraynta ah ganacsiguna waxay u bilaabeen si duruufi ay horseeday ama waxaaba loo dhiibay jago ama mas'uuliyad isaga uuna tabar u lahayn oo waxaa kala weyn shaqada loo dhiibay iyo hadba kartidiisa iyo aqoontiisa inta ay dhan tahay marka waxaad dareemi kartaa qofka noocaas oo kale wuxuu u baahan yahay is-horumarin joogto ah talooyin iyo tababaro joogto ah waxaan rabaa inaan kula wadaago marka qaanuun ama rule looga hadlay ama lagu sheegay buugga la yidhaahdo how to fix meetings oo aad akhrin kartid descriptionka ayaan kugula wadaagi doonaa oo la yidhaahdo 40-20-40 oo micnaheedu yahay 40% haddii kulan aad qabanaysid waxaa loo baahan yahay inaad ku bixisid hadba kulankaas diyaarintiisa ajendaha meesha looga hadli doono la tashiga dadka maxaa muhiima kulanka sidiisba in la isu yimaado yaa ka qayb qaadanaya wixii la midka ah 20% ama 20% waxaa habboon inaad ku bixisid kulanka marka uu bilowdo oo lagu jiro sidii aad u maarayn lahayd 40% dambana waxaad ku bixinaysaa hadba kulankaas dabagalkiisa iyo natiijadii ka soo baxday shaqooyinkii la isu diray action itemskii sida loo fuliyey uu dambeynna saameyn uu ganacsiga ugu yeeshay waxaa muuqanaya marka ganacsigeenna inay isu dabamarsan tahay arrintaa iyada ah oo meeshii la rabay 20% keliya in lagu bixiyo kulannada marka ay dhacayaan ayaa waxaa muuqata 80% in halkaa lagu bixinayo la sheekaysanayo muxuu ahaa ii sheeg la isweydaarsanayo waxyaaba ay ahayd mar hore in laga hadlo ama lagu sii xisaabtamo marka 80% la rabay in diyaargarowga hore iyo dabagalka dambe in lagu bixiyo waxaa muuqanaya daqiiqadaha kulanka lagu jiro ee loogu talagalay 20 daqiiqo inuu noqdo 40 inuu noqdo 2 saac inuu noqdo 4 saacadood 3 saacadood usbuuc waliba marka ay shaqaaluhu ay shirkadu ay ka lunto intaasoo saacadood oo kala duwan oo looga faa'iideysan lahaa siyaabo kale talada koobaad ee arrintan aan kaagala wadaagayo sidii aad uga baxsan lahayd waxaa ka mid ah marka hore inaad samaystid tijaabo yar oo ah go no go oo micnaheedu yahay shirkan ma la qabanayaa kulankan muhiim ma yahay horta gebigeed in dadkan laysu keeno laysu muxuu ahaa yimaado oo energy iyo time iyo wax kasta iyo resource kale uu dhumo ma loo baahan yahay si aad taa u ogaatid marka imtixaankaas sardaar rabtid inaad qaadid waxaad ogaanaysaa inay muhiimta inaad isweydiisid 3 shay midka koobaad waxaad isweydiinaysaa xogta la isla wadaagayo haddii ay update tahay kaliya in warbixin yar la isa siiyo ay taho kale kulankaas looma baahno ogow ma loo baahno sababtoo ah email yar baad ka diri kartaa ama qoraal yar baa WhatsApp group uga dhigi kartaa ama Slack message hadba wixii aad ku jirtaan oo communicationka shirkadu ay ku xiriirto ayaad ku wadaagi kartaan qodobka labaad ee fiirinaysid oo ku muujinaya kulanka inaan loo baahnayn waxa weeye qofkii go'aanka kulankaas qaadan lahaa ma joogo uu mashquulsan yahay safar buu jiraa ama labadii qof ee central ku ahaa oo muhiimka u ahaa kulankaas lama hayo walidaalika kulankaas qabashadiisa waxay noqonaysaa waan kulannay keliya in laga rabo waayo wax natiijo oo ka soo baxaya ma jiro ciddii go'aanka natiijada u qaadan lahaydna maba joogto meesha iyada arrinta saddexaad fiirinaysid in kulankan aan loo baahnayn ama muhiim uu yahay dib in loo dhigo waxa weeye haddii feedback uu ku saabsan yahay iyo arrin dhacday ama su'aal lagu soo weydiiyay haddaad rabtid inaad falcelin ka samaysid kulankaasi looma baahna sababtoo ah waxaad ku wadaagi kartaa qaab qoraal ah ama qaab arrintaa ka fudud talada labaad ee muhiimka ku ah marka kulannada aad ka fikiraysid waxa weeye ka fikir kulankan isaga yay tahay in la marti qaado
yaa laga tegaya yaa muhiim u ah qof waliba kulanka inuu ka muuqdo muhiim ma aha kulannadeena qaarkeed waxaa arkaysaa dad baa meesha fadhiya waxna aanu kusoo kordhinaynin bal caqabad ku ah anigu wallahi waxay ila tahay anigu waxaan ula jeedaa micnaha waxa weeye waa kugu raacsanahay waa kugu khilaafsanahay waxaasuu qofkii ku mashquulsan yahay ajenda ma jiro uu ka hadlayo diyaargarow uu sameeye ma jiro riboodyo uu soo akhriye ma lahan wax uu soo diyaariyey ma jiro ee kulankan ka horreeya walidaalika caqabad buu ku noqonayaa sharciga rasmiga ee loo baahan inaad dabaqdid waxaa ka mid ah haddii shirkadaadu ay weyn tahay inaad department waliba ka soo qaadatid qof ama labo aad is leedahay waxbuu ku kordhinayaa now hal arrin waa muhiim marka qofkaasi waa inuu miiska keenaa wixii fikrada ah wixii aaraa ah ee departmentigiisa iyo waaxda uu ka socda hadba ee shirkaasi quseeya sidoo kale wixii meeshaas la iskala raacayna waa inuu awood u leeyahay intuu qaado inuu tiimkiisa kula celin karo si arrintaasi ay wax uga qabtaan now talada tolmoon ayaan ku siinaya waxa weeye haddii aad aragtid kulankoo dhammaaday qof dadkii ka mid ah oo note iyo waxba aanan qoranin ama kulankii wuxuu kala baxo action items unan jirin ogow qofkaas markii horeba in la marti qaado ma ahayn bilaashay ahayd waa lagu qaldamay ama kulanka xiga qofka noocaas oo kale ah waa in laga ilaalishaa talada saddexaad ee muhiimka waxa weeye ood ku xisaabtamaysid waxaa jira waxa la dhaho the OC combo the OC combo waxa weeye owda waxay u taagan tahay objective kulan waliba waa inuu hadaf leeyahay hadafkaasina qof waliba oo kulan ka qayb qaadanaya waa inuu og yahay siduna wax kale maaha waa contextiga duruufta horseeda kulankan sidiisaba in la qabto hal tusaale aan kaa siiye marka arrinta owda hadafka waxa weeye tusaale ahaan kulankeenna waxaan ugu talagalnay sidii aan u kobcin lahayn 25% iibka shirkadda 5 bilood ee soo socota 4 bilood ee soo socota hadba wixii ay tiimku isla gartaan ama maamulku uu doonayo kaa marka waa objectiveka kulanka marka objectiveski waa inuu cad yahay qofku waa inuu u muuqdaa meesha la rabo in la gaaro arrinta kale muhiimka waa contextiga wey talow kulankan maxaa keenay 25% 30% why saleska raba in loo kordhiyo qofka waa inuu haystaa background information iyo xog muhiima as to why ay waxaan u dhacayaan masalan waxyaabaha ku caawin kara waxaa ka mid ah tusaale kuu noqon kara shirkadda ayaa waxay keentay 4 alaaba oo cusub ama 4 adeegay soo kordhisay sidaa darteed waxaan rabnaa inaan go'aano ka qaadanno bal istiraatiijiyadii alaabahaasi lagu suuq geyn lahaa marka already waxaad og tahay in iibka la kordhiyo hadaf weeye laakiin waxyaabaha muhiimka waxa weeye duruuftan keentay inaan alaab iyo adeeg cusub soo kordhinay ayaa horseeda in kulanka la isugu yimaado talada tolmoon marka waxa weeye haddii ay jiraan documents iyo faylal iyo warbixinno dadkan ay tahay inay sii eegaan ka hor inta aynan kulanka imaanin fadlan la wadaag wuxuu noqon karaa Google Drive wuxuu noqon karaa report aa u dirtid wuxuu noqon karaa inay soo akhriyaan muxuu ahaa ishik research papers wixii la midka anything oo qofkaasi caawinaya fadlan hore ula sii wadaag ama u tilmaan talada afaraad ee muhiimka waxa weeye kulanka maadaama la isu yimid oo kulankii howlkii la soo galay oo tiimku ay wada fadhiyaan oo timekii la wada ilaalshay kulanka waa inuu leeyahay qof hogaamiye dabcan waa qofkii markii horeba hawshii soo diyaariyay wixii la midka ah waana in la isla ogyahay qofkaasi inuu yahay qofka team leadka ah oo kulankaasi hogaaminaya hadduu minute taker jiro qof minute-ka u qaaday wixii la midka waa gooni haddii isla qofka team leadka oo isagu qaadayana waxba kuma jibna laakiin waxay ahaataba waxa muhiimka lagu baraarugayo waxa weeye waa in kulankaasi uu noqdaa inclusive facilitation wax la yidhaha qofka waa in uu kulanka u fududeeyaa oo uu ka dhigaa mid laga wada qayb qaato dadka qaar kulamada waxaa dhacaya 2 qof ama 3 qof baa la wareegaya markaasaa hadalkii ayaga maanta dhan qaadanaya su'aalo waxay weydiinayaan unnecessary ah timekii ayaga qaadanaya qofkaasi yaa u ogolaaday inuu saas sameeyo ama tiimkaasi yaa u ogolaaday waxa uu ogolaaday ama ha ahaato si ula kac ah ama karti darro ha ahaato hadba qofka team leadka ah ama meetingkaas horseeday arrinta iyada marka inayn dhicin weeye talada shanaad waxa weeye wixii cusub oo xiise leh oo soo baxa oo tiimku ay keenaan dib u dhig ha dhex gelinin kulankii socday ha u ogolaanin tiimku inay fikrado cusub la yimaadaan markaa isaga because inagu waxaan leenahay agenda waxaan leenahay action items inuu ka soo baxo aan rabno iyo arrin iyo goal iyo ujeedda aan leenahay sidaa darteed fikradaha cusub waa muhiim shirkadu way anfacayaan laakiin maanta ma aha waxyaabaad samayn kartid marka waxaa ka mid ah si aad u niyad jabinin qofkii talada keenay sidoo kalena tiimka aad waqti uga lumin waxaad samayn kartaa qofka keenay fikirka waxaad u sheegi kartaa inaad note qaadatay oo arrinta iyada aad diiwaan gelisay oo aad doonaysid inaad si gaar ah isaga la hadashid si details dheeri uu kula wadaago amaba kulan kale aad arrinta u qaban doontid si arrintan si dhab ah looga hadlo
arrintaas marka waxay badbaadinaysaa qofkii ma niyad jabin oo wuxuu ogaaday maadaama fikir fiican uu keenay in la soo dhaweeyo lana tixgelinayo dadkii kalena waqti kama aadan dhuminin oo ajandihii loogu talagalay shirkan la isugu yimid sidiisii ayaad u ilaalisay arrintaas iyada marka waxay kuu sahlaysaa in lagu baraarugo inaad tahay qof muxuu ahaa ilaalinaya tiimka waqtigooda iyo enerjigooda iyo waxa la wixii kulankaasi muhiim u ah talada lixaad ee muhiimka waxa weeye kulanka marka la isugu yimaado dad qaar baa gadaal isu dhiga dad qaar baana hadlaynin dad qaar baa cuqdadaysan ama introvert waxa la dhahaa dadka iyaga waxa isu sheegay kaliya laakiin aan jeclayn dadka kale inay la wadaagaan dadkaasi waa inaad ka hadashiisa mas'uuliyad ku saaran weeye ugu yaraan isku day dadkaasi inaad u muujisid in fikirkooda uu muhiim yahay haddii lama huraan ay noqotona magacooda ugu yeer tusaale waxaad dhihi kartaa cabdiwahaab muddo ayaan muxuuna dhegaysanaysa dabcan fikrado way kugu jiraan maxay kula tahay arrintaas waa laga yaabaa cabdiwahaab inuu markaa isfurfuro oo wax uu kuu sheego haddii ay dhacdo stiil weli adigoo waxa u sheegay inuu xirxiran yahay oo waxna uunan samaynaynin hal tallaabo kalaad ku dari kartaa kulanka u muuji natiijada ka soo baxday inay tahay natiijo wadareed oo dadkoo dhan ay raalli ka yihiin sidaa darteed isticmaal erayada tusaale ahaan natiijada kulanka maanta inooga soo baxday waxaan isla garannay waxaan isku raacnay sida muuqata waxaan isku waafaqsannahay waxyaabahaas erayadaas jamac ah oo wiida aad xoogga saaraysid waxaa qofkaasi ay u sahlaysaa in uu dareemo arrintan inuu qayb ka yahay lidaalika hadhow daba ma sheegan karo ma dhihi karo aniga arrintaa liigama talagelin iyo wixii la midka dadka qaar intay u aamusaan ayay mar dambe waxay yidhaahdaan anigu arrintaas waxba talaa kuma aanan lahayn laakiin freyskan dambe oo ah in la isla gartay arrintan waxay meesha ka saari doontaa eedayntaas ama ducfigaas iyaga ka muuqda oo hadhow dambe ay ka dhigan doonaan aalad ay ku docwareemaan hadba wixii kulanka uu ka soo baxay talada toddobaad ee muhiimka waxa weeye kulanka marka uu dhamaado isla marka kulanka laga baxo fadlan waxaad diyaarisaa meeting summary waxa la dhaho kulan wax soo koobaya hadba wixii meesha laga hadlay qodobadii la isla hadlay muxuu ahaa la isla gartay action itemskii cidda mas'uulka ahaa oo la isla gartay waxaas la isla gartay durba dadka la wadaag email baad ku diri kartaa whatsapp groupka u dhigi kartaa laakiin document yar oo ka soo baxay kulankii xyz ee dhacay xilliga wixii la isla gartay action itemski iyo cidda ay mas'uulka ka tahay arrintaas muhiim weyn waxaan isla garanay inaan shirkadda hormarino kaliya meeting ma aha waxa ka soo baxay waxaas shaqo waliba action item waliba waa inuu leeyahay qof mas'uul ka ah oo runtii arrintaasi dabageli kara qodobka 8aad ee ugu dambeeyaan rabo inaan kuu sheego waxa weeye oo muuji dadkaaga inaad danaynaysid maskaxdooda qodobkan waa laga yaabaa dadka qaarkood inuu dhaho warheed meesha xisaab baa la soo zaa'idinaya arrintaas inaan iska dhaafnaa fiican wax kale ma aha dadku markay isu yimaadaan meel kulanku uu dheeraan karaa ama xilliga kulanka aad ballamisay ayaa wuxuu noqon karaa xilli aan munaasab ahayn tusaale ahaan aroortii hore haddaad ballamisay dadka iyagoon soo quraacan oo kale waa inaad ku talagashaa quraacdooda inaad siisid haddaad qadada kadib ballamisid oo kale markay soo qadayaan oo kale waa inaad ku xisaabtantaa energy islam waxa la dhahaa imaanaya enerjiga hoos u dhacay inaad koro u soo qaadid waxyaabaad samayn karta waxaa ka mid marka coffee yar snacks yar in la keeno shetar yar waxoogaa in qac laga siiyo dadka waxay siinaysaa kalsooni ah inaad danaynaysid maskaxdooda waayo qof enerjigiisu liita waxa uu kuuma tarayo ku xisaabtan marka inkastoo culays ay ku tahay shirkadda laga yaabo in expensiga teamka financega ay qabsaan dhahaan inuu qarashkan wax badan aan ku bixin naga dhaafi wixii la midka ah ma malayn kartid saamaynta uu ku leeyahay shaqaalahaaga iyo dadka isu yeertay halahaas yar oo laga yaabo kulan walba inay ku baxaan muxuu ahaa $30 $20 $40 iyadoo laga yaabo 6 qof 7 qof 10 qof inay meeshaas iyaga ah kafee ka cabaan oo xogaa yar gooska ay dhaqaajiyaan oo kale marka qodobka 8aadna waa qodob yar oo isleeyahay qofka maskaxdiisu markaad danaysid isaguna wuu ku danayn doonaa waxaa jira rule iyo qaanuun dhahaya the rule of reciprocation wuxuu sheegayaa hadba qofka waxa loo sameeyo ayuu wuxuu ku dadaalaa isaguna inuu soo celiyo wanaag waxaa ka dhalanaya wanaag ixtiraam darro ama dayacaad waxaa ka dhalanaya dayacaad walidaalika maskaxdooda haddaadan danaynin oo qofkii uu iska caajisan yahay waxaa dhacaysa inuu input fiican ku siinin isagana uu tartiib u fadhiisto maanta inuu iska hamaansado kulanka inta laga soo xiriyo maxaa noo dhiman maanta inuu ku jiro wax kaloo noo dhiman maa jira wax kaloo inuu ku jiro inaad waxa weeye already qofkaas wuu ku dhaafay wax badanna kuguma soo kordhinay maanta intaas haynoo ahaato haddii aad danaynaysid sii horumarinta dadkaaga shirkadaada dhammaantood fadlan booqo website-keena bravo.so si aad u aragtid adeegyada kala duwan ee aan siinaynay shirkadaheenna Soomaaliyeed 10kii sano ee la soo dhaafay haddii aad weli nagu soo biirin fadlan soo dhawow nagu soo biir share garee la wadaag dadka asxaabtaada iyo shirkadaha kale noqo bravo ha ka baaqsan weligaa ha ku barbaarise guul ganacsiga Soomaaliyeed